هل للعلا للمرء من سبل كما نور الكتاب هداية الحيران. اقرأ ورتل وارق في تلك السماء، جنات عدن ما رأت عينان. يا صاحب القرآن يا صاحب القرآن يا صاحب القرآن يا صاحب القرآن. إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. xogaa muqadama yar intaanan gelin ayaan waxaan rabaa insha Allah inaan bal sheego laba arrimood. midda koowaad oo ah bal xogaa fadliga cilmiga uu leeyahay inaan mar kasta isku soo kicino, faa'iidada laga helayo maxay tahay. waxaan kaloon haddana keeni doonaa insha Allah xogaa axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo qur'aanku may kala maarmaan oo ma la kala reebi karaa. qofku ma oran karaa qur'aankan ku eekaanaya axaadiista rasuulkana halkaa iga dhig. labadaas qodob baan rabaa marka hore inaan yara baraarujiyo. cilmigu waxa weeye wax sahlan maaha. qofku intuu dhegaysanayo marba intuu dhegaysanayo ayay malaa'igtu soo fadhiisataa, khayrkuna uu bataa. rasuulkuna wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam: majtamaca qawmun fii beytin min buyuuti illaahi yatluuna kitaaba allahi wayatadaarasuuna baynahum ilaa nazalat calayhim assakiina وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نبي عليه الصلاة والسلام قومكما هي مالكما قبطان كتابك إلهي إيا دروس إيا أرمك صاحبسين دينت إلا وحوية سكينة إيا الدقنا شاي منيسا نحريس إلهي نددك ويدبوليسا إلهي خالق أنا ملائكة أكتو ده أيا أوي كشيغ إيا ددكاس وقران إيا بلا دوما دايدي إياغا سيدي ودبيسان إيا خير كفر marka qofku laba mid kama baxo, ima uu shar dhageysto iyo ima uu khayr dhageysto. labadaas kama baxo. waa markuu maqan yahay shar, hadduu shar ku maqnayn khayr ka eeg, hadduu khayr ku maqnaynna shar ka eeg. labadaa u dhaxeeya. walidaalika cilmigu wax sahlan maaha. cilmigu xataa qofka wax kastoo ka xakamaynaya, wuxuu kaa xakamaynayaa sida hadda arkaynaba aayaadku inoo akhrinayay walaalkeen ayaa waxaa ku jirtay: وقال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. dadka cilmiga leh kuma dhaqaaqaan maskaxdooduna ma siiso inay reer adduun kaliya noqdaan ku dhagaan. maaha ma diidayo, laakiin dad reer asxaabu dunya oo diinaar maaha, laakiin waa dad ka duwan dadka kale. dadkii adduunyada rabay ee qalbigooda ay ka buuxday waxay yiraahdeen war qaaruun wixii la siiyay mana la siiyo. kuwii cilmiga lahaana waxay yiraahdeen balaa idinku dhacday sawaabka ilaahay iyo ayaa ka khayr badan. wax kastaba ka khayr badan waa ninna qalbigiisa waxa ka buuxa cilmi, ninna qalbiga qofka kalena waxa ka buuxa xub dunya ba ka buuxda. xub adduunyadii ba boqolkiiba boqol ka buuxda. walidaalika waxay keentay inuu yiraahdo ninkaas wuxuu leeyahay alla yaa isiiya, kana wuxuu yiri waylakum. dadkan kale waxay yiraahdeen sawaabka ilaahay ba ka khayr badan. isku meel ma marka waxa qalbiga ku jira sideedaba wuxuu soo baxaa wax kadiis markay yimaadaan baa la ogaadaa qof qalbigiisa waxa ku jira. si kale looma ogaado. midna hadda diyaarad ba kula dhacday ama waxay tiri diyaarad kadiis ba kula dhacday, qofka waxba ka soo baxa. qof waxa laga yaabaa inuu yiraahdo Shacab Jilaaniyow kadiis bu ku yimid, ninna inuu yiraahdo horan xasbuna wa ni'mal wakiil la ilaha illa allah booranaya. laakiin kadiiskay ku timaadaa sideeda arrinta qalbiga ku jirta lama ogaado ilaa markay wuxuu dhacaan baa la ogaadaa. dadkan mar alla markii ilaahay waxaan siiyay qaar yiraahdeen alla adduunyada nasiya, qaarna waxay yiraahdeen markii ay soo kaceen ay waxay yiraahdeen war sawaabka aakhira ka khayr badan. taa waa kooni. talabaadeen rabaa inaan baraarujiyana waxa weeyaan cilmi xadiista rasuulka quraanku ma kala hadaan. nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaan arki doonaa dad buu ku leeyahay markaa iska raaxaysanaya oo intuu fadhiistay meesha bangaladiisa
horteeda ku raaxaysanayo kursi saa ugu jiifsaday dabadeedna oranaya ma xalla allahu fi lkitaab xalalna wama xarama allahu fi lkitaab xaramna bes way dhamaatay ilaahay wuxuu kitaabka ku xarimayna waan xaaraantinimaynaynaa wixii xalaalana waan xalaashanaynaa waxa intaa ka dambeeya maba jiriba maa wajadnaa fi lkitaab faqad bas wuxuu tuurayaa marka sunnadii nabiga alayhi salaatu salaam laakiin ma kala maarmayaan seebin ku kala maarmayn qur-aanka bal aduu fiirso wa aqiimu salaata unbaa lagu oran wa aatu zakaata salaadii duuduuban baa la iska kaasiiyey yaa ku caddeeyey zakadii oo duuduuban baa la iska kaasiiyey yaa ku caddeeyey nabiga caddeeyey alayhi salaatu salaam muxuu shantii salaadood ba isaga caddeeyey saasaa loo tukadaa saasaa la yiri ilaahay baa usoo sheegay kama kala maar alaa inni utiitu alqur'aan ومثله النبي عليه الصلاة والسلام قرآن كان هو اللي يسيء استاق وحلا مدنا هو اللي يسيء حكمة بدن بالسيء النبي عليه الصلاة والسلام مركا ما كلام مان مركا علمك أينو دقيسنه أنت دقت هذا يكون دعيسة سامي عشان شيخك أركضونه قفك آخرية قفك دقت كدقيسته قفك قري قفك فريسته أنتوا بود عينيه وحول أجر الله كسير كتاب كان مركا هو كتاب أحكامه أو قفك على ربعين كأوجاده وحق إلهي كأعبده سبحانه وتعالى والصلاة بتكنسه صلاة تكنيسو وين أوجاتا وح بلا علم يأدونك إلهي ما أقبله بدون علم شيء الله ما أقبله حتى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله علم جيد هدانا نقولين واسكتري موياني وحوم الله شيخ صلاة دي كور سكدي كور وعكت كور وكوين الأوجادو أيام مهم أرنتك على علم الدين تي أنا قلت كتاب كي سنضنا أيسلا صعدان الله بدو وحي يجين إذن هالأوجادو تصوم مهم شيخ كتاب كان قريبا وحي يرك شيء نقول ديران ما إنه مجي عيسى أبو محمد باليراده وكن يضم مركان يراده ويان أيا ليراده وحال يراده كن يدي سؤال يراده أبو محمد مجي عيسى عبد الغني باليراده حتى النسبة نرادنا وحالون نسبة مقدس باليراده ودن كان يو ويدري دجاج لبيت المقدس ما لازم بدنا المجال يرو أيو أقد دجاج ليراده الجماعيري ليراده مجال سأل يراده أقد بود دجاج لين علم له أو ورع وها تبدأ ويسكت جاي دمشق ما لهم بود جاي دمشق مركو تجينا وشوي عطا كتابه قابلين شيء مساج كمويينته تبدأ ضد بيسكوا على عيون هذا مركز دم ولا وحي مدرسة تكون ضد ونكسن عائلة طبيعية هاي هل كاسنا مدرسة بكرجز مدرسة عمرية اللي يرادو أي أساسين تأد ونكسن أيو كل شيء مركنين آدي علمي وبدن الهابها علوم بدن علمه كقاضي شيخ جيلاني بكلمة شيخ النوع نوعاتهم ما أنتم تذكر كتر تعرفيان عبد القادر الجيلاني هو حكى برتي سوى أفرت المملود مصر لا تشوجه أيوة محوي وشيخه بودين جيلاني عبد الجليل بودين تبدأ محوي وسكسرتي هاتنا هذا ما يلا بعد إسبهان إياه ما يلا هنيو إياه دمشق إياه همدان إياه ما يلا هنرد بعلمك كوضع قاطع ما يلا فربضن مركب وحويان كتاب كان سكبي لابن نحن كل إيران منه محب على قبل هذا الحمد لله أما بسملة هذا وكاتره بسملة هو بسنك الحمد لله وحنا كودا الحمد لله بالغ بالله الله سبحانه وتعالى قرآن كتاب الله يجا محل بدن بقرآن كل شيء الحمد لله فهذا هو الرئيس قرآن هو رئيس مركز بالله قرآن خرصما الحمد لله رب العالمين حكم يجي إلى هاي الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير سورة كلا الحمد لله كأتنا وكذلك أيكم بالله إله سبحانه ما حد مرك إله ما يسكله نبينا عليه الصلاة والسلام صلاة الليل كمركو هبينك يستاجوا وبيجري اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت المالك ولك الحمد أنت مالك سماوات والأرض ولك الحمد لك الملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق لك الحمد ما حد بكل ما ينيا قيبك من سماها والله آخرية بكل مركب وحوي افتتاح الله آخرية أي سيرة تريد كنيد وحمد بكود بالله هذا إسكال السماوات كنيا مات كوسقنات ولذلك قفك مسلم كا وأنا الحمد لله كل بالله شيء قال الحمد لله نقول بالله حرام ما هدي إلهي بعد أنا أمان نبي أمان سوء أماني حتى ما بقاري كثير أمان ديس إلهي أمركم نبي ورني اللهم لك الحمد أنت كما أثنيت على نفسك لا أثني عليك ثناء أنت كما أثنيت على نفسك إلهي ما هديسه ما بقاري كرنا شو يسكو أماني وياه لكن وقفكم بالوظائف يعني الحمد لله هذا الكيناس كبل الوظائف شيخ مركب وحولي هاي
muqaddamadan ugu horeysa allah ayaan akhriyaynaa wax yar dabadeedna waanu iska soconaynaa inkastoo waxa weeye dadku iska yaro degdegsan yihiin waa iska bini'aadamku waa iska cajuul alxamdu mahad buu yidhi waa ka ku bilaabay lilaahi ilaahay bay u sugnaatay allihii almeliki boqorka ahaa limanil mulku lyowm lilaahi lwaaxid alqahaar way dhammaatay ilaahi subxana watacaala qiyaamaha wax alla wixii jabbaarin ahaa wax alla wixii boqor sheeganayay wuxuu oranayaa war yaa maanta yaa milig sheeganaya boqor yaa sheeganaya limanil mulku lilaahi alwaaxid alqahaar isaga naftiisa isku jawaabay isaga aniga mulki aniga mooyaane qof kale mar allihii qahaarka ay qasbayay ayuu baa iskale marka ninka sheegta nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiis wuxuu ku yiri dadka kan ugu xun ee waxa weeye ninka malikul muluk sheegta allahu akbar mulugti oo dhan boqorkooda ninka sheegta ugu magac xun ninka saa sheegta la baxa ajiib way marka qofku ma sheegin kartid daciif baa tahay waxaa tahay qof khuduuc loo baahan yahay inaad tawaaducdo oo ilaahay isku dulayso oo sirayso oo iska dhigta dee maxay allaha khaaliq ah waa maaliki marka ilaahay dhulka iyo samada ayuu mulkiyey wax ka hadla arki maysid gaal iyo muslim iyo nin bilaa diin ah iyo nin diin haystaba samada lagama hadlo maanta roob haddaan la keeno gaalku ka hadli maayo jawigu mu ka hadlaa maanta waxaa imanaya dabayla iman booran mooyaane ilaahay iyo waxaasi dhanka ma faragelin karo awood dhow male waa qaahir weeye waxa diidi kara male naf baa la qaadayaa way dhimanaysaa qof celin kara ma jiro qof soo celin kara male allah subxaanahu watacaala waa allah saasa marka boqor weeye marka boqornimada qofka kula qabsadana ilaahay subxaana watacaala wuu kala jebinayaa boqortinimadiisa haddaad kula qabsato allah waad iska hor imanaysaan alxamdu mahad lilahi ilaahay baa iskale allihii almelika allihii aljabbaara kabidda ah kabidna waa la yidhahdaayo addoommadiio daciif iska buu alla kabaa subxaana watacaala uu iska daciif iska liito cudur haya ayaa haddana ilaahi subxaana watacaala iska shaafinaya markaasuu kabaya jabbaar xoog badan allaha buu kule jabbaarka weeye wax ka daba hadlaya ma jiro alwaaxid weeyaano lam yakun qul huwa allahu axad allahu samad waa kaa allah waa keli weeyaan waxa labeeya ma jiro qofka yidhaha laba ilaah baa jirana waxa weeye khaalidan fi naar hadduu ku dhinto waa hadduu ku dhinto hadduu ka toobad keenana ilahay toobadiisa waa waasac weeyaan laakiin waa hal ilaahay alqaahir weeyaanoo lama diidi karo wax kasta waa ku qasbanya qofku wax kasta dhimashadii adoo nafta halkaa ka baxayso waadan diidayn dhakhtar kasta haddaa la keeno wuxuu leeyahay qofkan waa u dhamaatay bas weeyaan waxba kama qaban karo waa dhamaatay waa la qahrayaa wax addoommada dhulka jooga iyo waxa samada wax kasta oo jooga allah waa qaahir weeyaan wax amarkiisa diidaya ma leh wixii soo dhamaada risqigii baa lagu siin waa lagu ada lagu quudkii baa lagu waxayn qof waa la siin qof waa laga qaban waxa weeye qof ilaahay la dikra mala subhanahu wa ta'ala marka waxa weeye waa allah sifooyinkii baa lagu sheegayaa xamdiga marka iyo shukriga maxaa marka u dhaxeeya qofka mar baa laga yiraahdaa inaad tiraa shukri lillaah tiraa manna alxamdulillaah culimadu waxay yiraahdaan qaarna xamdiguna waxa weeyaan caam eebu kula shukriguna waxa weeyaan mar wuxuu noqonayaa khaas ma noqonayaa oo mar haddaad tiraahdo ka waran alxamdulillaah asmaada ilaahay waad ku mahadinaysaa soma asmaada mucaddada iyo ghayru mucaddaha waad ku mahadinaysaa ilaa asmaadiisa oo alxamdulillaah magacada ilaahay oo dhan baad ugu mahadinaysaa laakiin lisaankana wuruudkiisu ka yimaad meeshuu mawruudka ka imanayo uu ka soo baxo waa carabka laga alxamdulillaah laga yiraahdo laakiin wuxuu kaga duwan yahay shukriga carabkana waa laga yiraahdaa qalbigana waa laga yiraahdaa jawaaridana wuu ka dhacaa marka wuxuu noqonayaa marka mar khaas buu noqonayaa kanaas laakiin ka caamsan weeyaan laakiin ilaahay asmaa qaar kamida qadiimnimadiisa oo kale matalan iyo culuwiisa uu sareeyaa iyo hadaa tira waxaan ku shukrinayaa sareynta ilaahay la ma saas ma way kala yar duwan yihiin marka waa la kala yar farqiyaa labada nooc waa la kala farqiyaa lama saas u kala yar waxayaan weeyaan وأشهد وحن قريا أشهد مركز ذي وحن قريا وحن أجانيا أنت صور مبالغة وحن علمي ما نقول يعني وحن أجانيا تقرير هو علمي أنت صور أي نقول أنا ترى هذا مركز وأشهد وحن أجاي وأشهد وحن قريا لا إله إلا الله الله كون كان حق له أبد إنه استجد إلهي مويان سبحانه وتعالى وحده كليه لا شريك وذاك يقف له وذاك ما جرته أنا أغنى الشركاء عن الشرك إلهي سبحانه وتعالى الحديث القدس أنا أغنى الشركاء عن الشرك من أشرك ننكي إلى الشريك يلا أنا أقف إلى السماء السجى إيه وحي سبب ساسا نقول يا إلهي سبحانه وتعالى تركته وشركه السجى شركه سبب وأنتور يا إلهي سبحانه وتعالى لذلك قرآنكم وحكشك يا توحيد أنت بدن مركز ذاك توحيد أنبياء الله صادري توحيد كاس أنبياء الله صادري أيها بدن هذا الكيسة ولقد أرسلنا إلى نوح إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله
ما لكم من إله غيره وإلى عاد أخاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالح قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره نبي ذو نمبا هل إله بس شيء وحكى صهرة حبك مجران لكن بلا آذن ككد عضايو قريش به النبي مركو يقولوا لا إله إلا الله تفلحون أي وحي راذين في سورة ياسات أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما صدح بقول يلحدا صنم أو كعبدا كو wareegsan ayuu maantana leeyahay hal ilaah caabuda Allahu akbar hal ilaah caabuda ninkan waa sidee sina way u garanayeen markaa tirada ninka nabiga u yimid uu yiri misaal caabuda intaas oo ilaah baan caabudaa ilaa 6 meelaas ma lahayn todoba ee ahayd baan caabudaa markaasuu nabigu yiri keebaad ugu jeceshahay keebaad ugu jeceshahay buu yiri keebaad ugu jeceshahay uguna cabsi badan tahay markaasuu yiri alladhi fi samaa markaasuu nabigu wuxuu yiri waaye ka samada caabudo inta kala daadi marka intan kale waxa ma taraana iska daadi ee gaalku og yahay waxaan uu caabudo in haddana wuxuu og yahay ilaahayga inuu wax gaalada bar eeg markay wax yar dhacaan my god buu leeyahay صارت ilaahay uu leeyahay ka hatta deenishka mu'arab waqti kasto tagto ilaahay uu leeyahay markay dhibaato fa idha rakibu fil fulki da'u allah mukhlisina lahu ad-din falamma najahum ila al-bar idha hum yushrikun badda barkay fuulaana dabayltimaad wuxuu leeyahay ilaahay muu yakana jirsan ku tuuraya markuu ka soo degana magaciiba soo qaadanaya markaas uu leeyahay waan caabudaa fa anna yufakun seeba loo leexinaya ilaahay quraanka badana say u leexanayaan dadkani marka wax sahlan ma aha allah waa waahid marka ninka ku dhinta waahid ku dhinta inuu yahay ilaahay wuxuu ballan qaadiya ilaahay inuu naar ku waarinayn qof ashahaatay oo ilaahay qiray qalbiga iyo liisaanka labaduba is waafaqsanaayeen ka soo saaran naarta uu leeyahay jannada la geliyo wuxuu ku matay kelmadaas keligi inuu yahay inuu ahaado marka waxa weeyaan rabbu samaawaati wal ardi samaawaadka todobada iyo dhulka todobada rabbigooda weeyaan iyo wama baynahuma inta u dhaxaysa samada iyo dhulka khalqiga ku nool ilaahay baa al-aziz allah ghalibka weeyaan wax kasta ka adag ee ghalibka al-ghaffar waxa weey mubaalaqa wa allah dambi dhaafka badan badana marka aad buu dambi dhaafkiisa u badan yahay oo iska dambi dhaafiya adoon wax kasta adoon marka waliga adigu qof ku dhihin ilaahay ku dambi dhaafi maayo nin baa ku yiri si xadiis ku sugnaa ويري والله إنه إلهي كان ولي كان دافع كان إلهي يري وكان كان كدارنا يا ألا كان كدارنا ينا ندم دافع وهو دم بدأ أنا عمل كيوان هو بيجي سهلا ما أمر سكست مهما أوقف الدم بأكله حويان إن دواني سمو يانه إلهي كود دافع ما يسكتين مرادو الشهادة وخطر عظيم الغفار صفة يا أسكره الله يا أسكره الغفار الله ضاف مقع إلهي بسكره سبحانه وتعالى الصقى يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يا وعذابه يا وعضافه الله سبحانه وتعالى سجى غفار كان سكله اسكما بس إلهي اسكما في مقابين با هدون ودا في لهين حديث كما waxa jira oo laha rasuulka kaleey salaatu wa salaam hadaydan dambaabi lahayn qoom kale uu ilaahay ka salaha dabadeed dambaaba dambi dhaaf weydiista waan ugu dambi dhaaf ilaahay wa ashhadu waxaan qiraya anna muhammadan nabi muhammadna abduhu wa rasuluhu maxaa la isku raaciyaa markasta ilaahay baa la sheegaa nabi muhammadna waa la sheegaa lama kala reebi karo quraanka ku arkimis inta badan waman yuti illaha wa rasulahu badarkaysa inta badan saas ku arkaysa waman yuti illaha war rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama allah waman yuti ar-rasula ilaahay baa hadan ka soo dambaynaysa ayada saas ku jirta an-nisa ayaa ku jirta iyaduna saas marka ilaahay iyo rasuulka lama kala reebi karo hadaan maanta tiraa ka waran anu ilaahay ma rumaysan rasuulka ma rumaysan waxa kama jiraan rasuulkan rumaysan ilaahay ma rumaysan waxa kama jiraan labadaba waan ku dhawaaqda marka oo sheegto oo tiraa ashhadu waxaan ogahay oo qiraya anna muhammadan abduhu adoonuni oo maxaa abdi loogu magacaabay allah baa ku magacaabay subhana alladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa abdi ilaahay ku magacaabay adoonka waa sharaf hada adoon lagu yiraahdo sharaf baa tahay sharaf ay u tahay nabi alayhi salaatu salaam darajo fara badan meel sariga nabiga la gaarsiiyay laakiin nagu waxaan arkaa isagaaba yiriba qulu waxa tiraadaan adoon ilaahay dhahay yiri marka rasuulullaahi abdigiisa ay dhahay yiri meel sarahay gaarsiin iga daaya la tadruduni kama daradat siday u cayrisay al-yahuud an-nasara ciisa ibn maryam si ugu xigtageen oo quliga ugu sameeyeen iga daay nabigu yiri ana abdullaahi ana ya rasuul bas adoon ilaahay iyo rasuul inta igu ekeeyeen way nabiga saas ayaa la gaarsiinay qof bila aadan hadda jooga xadka dad dhaafisa ka war oo tira samadu kala ayaa dhulka
وحبك حاجة وماشي سنت تقاطه قلوب السرقة تجارسيسو ودي النبي عليه الصلاة والسلام قلوب السرقة في كل واقع سيدة وبلديه بس النبي وحجي عليه الصلاة والسلام أما أنت قفك لأمانه وتشوتشي هو يقول إنك أنت لا أماني قف أمانية أركا أنتوا رجحان قاعد وجهك كقطع دي ما فينا إنك أمانة وين ندش دولة الصوماليات ومثل إنه نبغى والله وضع هسا بلا يوم بالهيس هي بالواسر رأي أمر كم بين تسقاطين دولنا دسمين وإحنا سمين مايان هل حب سمين ما أمانة أمر ربعين على الأرض لقوا سلام لقد ولا كان كل حنو لقى هذا وح أمانة ما درت هذا ما بأركيس سوق قاله كان رجل زارها كان هاي استوطن تناك تايسته هل كاتيس كتاج أنت وحدي قبصنا يسبس أمانة النبي عليه الصلاة والسلام قفل أمانة يو قف كان مسجد أستا أحسن وأنا ملاينا يا إنه سايي بس فاري ورمات لكن وأنا استدنيه قاصدا إيو بس يقول حير عرّ أنت القاطن ساوي شيء وجهي يقول لك شيء يقول لي حتى هذا توح النقطة حتى لو قبصنا معي أساسنا ملي النبي شيء عليه الصلاة والسلام وحسالا ما أمرك أمانة وحلول ديديها أصحابتي الرسول كان واحد أمانة يبلغ أرب أبو بكر باقف صدي واحد أمانة لما أرب وحالارك عمر باقف صدي لما أمانة اسمع كذلك وإيش وضع حسنا لما تفسي هاين إنك أمرك إسكاه تضع حب جرني وأنا والرسول رسولك إلهي صادر ويو النبي إلهي بحقيسك إلهي بصادر ما يسوي سكلي من الجيس ما المصطفى كيل الدورتوي المختار نويان وكيل الدورتوي اسكم يضه كلمة المختار لا يراد واحد كستيس كنا قنيسة اسم مفعول بين قنا اسم فاعل بين قنا مستر بيس كنا قنا مستر واحد كستيس قنيسة مك المختار كيل الدورتي المختار دور الشدي المختار صدح بالنواب وسكنا قنيسة ساعتهم بكتب هذا صلى الله أمان عليه كركيس الله يله وعلى آله iyo ehelkiisa marka maxaynu ku tilmaanaa ma intii reer bani haashimi marka zakada la yiraayo iyo reer bani abdul muttalib mise azwaajtiisa mise inta ka dambeysay muumina oo dhan baa la oranayaa culimadu way isku waxayaan وعلى آله iyo ehelkiisa iyo saxaabi asxaabtiisa alla khiyaara doorka ah ee la doortay khiyaarta ahaa ayaa marka intaas oo dhan ilaahay buu ku leeyahay marka waxa weeyaan amaan buu ku leeyahay marka korkooda ha yeelo way ama naxariisna dad way yiraahdaan laakiin أمانته بدنا إلهي مركو إن الله وملائكته يصلون على النبي وحويان مركل ليه وأون وحوي إلهي أمانتي ومانيه نبي عليه الصلاة والسلام أما بعد بيقول مركل الشيخ هدف في كتاب كشيرية فإن بعض إخواني ولا الله قار كمذا بعد جود أيا سألني سؤالي بعض قاسي اختصار جملة إن الصوغ أبيه جملة داسو في أحاديث الأحكام أحاديث أحكامته وكسابسا أحكام كسابسا أي ويدين يرادين نو ألف ومما كمذا أولي أحاديث تاسي اتفق بكرة اسكو وافقين عليه الإمامان لبعض إمام كبدل دارة أم بيان كده أبو عبد الله أها محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري يو مسلم من الحجاج ابن مسلم القشيري لو نسبيي ووضع النسبة أني سابورية فأجبته وان كي يلي بير بعضها وسؤاشي أي ويديين وان يلي ولا الله إلى سؤاشي أيان كي يلي بير دتكاسي ولا لها رجاء المنفعة به أنا الرجين يبكرين كل انتفاع الرنكاس وأسأل الله إلهي من ويدي سنية أن ينفعنا به إنه نقول انتفاعه كتاب كان ومن كتبه قف الله قفك قرين إلهي كل انتفاعه أو سمعه قف الله قفك مغلين الله كل انتفاعه أو قرأه قف الله قفك آخرين إلهي كل انتفاعه أو حفظه قف الله قفك حفظيين إلهي كل حفظيه أو كل انتفاعه بل أنت صور قف الله قفك قرأ كتابك إلهي سبحانه وتعالى وكل انتفاعية قفك مغلين نجو كلانا الله سبحانه وتعالى وينوي انتفاعية قف الله قفك بكرة مركا كتابية قفك آخرين إلهي سبحانه وتعالى وكل انتفاعية قف الله قفك حفظينا كبدرا استنا وحوي أو كي يرى وياني نظر فيه آجينا إلهي إنه كل انتفاعية قف الله قفك ساوى المرء آجوه هل حديث كآخرين استنا انتفاع ويالا وكيالا هي وأن يجعله إنه كيال إلهي أيان أبريا ويري خالصا لوجهه إلهي درادي بكل خالص مذاه خالص كوحة يرى مركا شيء كسته وحا لو استعمالها عمل كسته بني آدم كو قفته لبا شيء يكو وريغا لبدا شيء با لا ايغا انه هذا خالص لله انه هذا خالص iyo inuu ahaado bukuna mutaabaca inuu yahay marka mutaabaca iyo inuu ikhlaas yahay laba waxay yiraahdaan ida kana khalisan walam yakun usan ahaanin mutaabaca usan lahayn wax faa'iido male mutaabaca hadaad leedahay raacday rasuulkiina ikhlaas ayna lahayn faa'iido male ikhlaaska iyo mutaabacadu marka israacdo ayaa amalka la yarjeeyay in ilaahay laga aqbalo subhanahu wa ta'ala amal kasta marka waa ikhlaas kitaabada dhigaysa hadaad wax qabanayso hadaad wax samaynayso hadaad dad u qabanayso reehbil iyo futuudi hadaad soo geliso sheekadu way baaba'aysaa waa inaad u qabataa ninkani ilaahay daraadii baan waxaan ugu qabtay rabbi bas inaan ajir ka helo wax kale oo aan ugu qabanayo oo qaraabo iyo wax kale naga dhaxeeyo ma jirto laakiin ilaahay daraadii
haddii camalka laakiin shaytaan uu shaqaysanayaaye uu ku soo gelin ma raba isagu wax ikhlaas la yidhaha sababto waxay tahay muxuu yidhi ila almukhlasiin mukhlisiintiibuu uu diiday shaytaanku wuxuu yidhi mukhlisiinta kama adkaan karo inta kale dadka waan xaabsanayaa laakiin waxaaba yarba inta mukhlis noqota bal adu eeg cibaadada aad samayso amaba waxaad qabato inta badan markaad eegto qalbigaaga waxbaa soo gelaya dalaq ama waxa weeye ninka la yidhaha waa nin fiican oo waa nin cidda u shaqeeya ama ha la yidhahdo war ninkaas ninka wanaagsan ma jiro wuxuunbu ku soo ridi walidaalka shaytaanku wuxuu ka baqay waxaa kaloo dhan waan duufsanaya laakiin mukhlisiinta aan uma dhawaanayo mukhlis uma dhawaanayo maxaa dhahay dee waa nin khatar waa wax sahlan ma aha qofka hadduu ikhlaas la yimaad waxa weeye cibaadadiisa sawaabkiisa iyo wixiisa dhan waa rakiban yahay laakiin hadduu la mar waaba iscunayaaba isagii baa isdhamaynaya muujiban isagoo waajibinaya buu yidhi kitaabku lilfawzi ladayhi ilaahay agtiisa buu kule liibaan fara badan fii jannaati naciim jannayaalka lagu nicmaysto ee barwaaqada le agtiisa ilaahay agtiisa waajibinaya khayr fara badan ayuu yidhi fainahu ilaahay xasbunaa waa kaafigeega ilaahay baa nagu filan xasbunaa haddaad tiraahdo waxa weeye waa ilaahay keliyan baa loo yidhaha ilaahay baa xasbigeega xasbi waxa weeye waxaana nabiguna waa yidhi calayhi salatu wasalaam nabiyullahi ibraahimna lama ulqiya fi nnaar muxuu yidhi xasbuna allah wa nicma alwakiil nabiguna muxuu yidhi markii ay yidhaahdeen ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum fazaadahum iimaana waqaaluu xasbuna allahu wa nicma alwakiil marka fainahu ilaahay xasbunaa kaafigayga weeye waa nicma waxaa nicmo lahaaday alwakiil almuwakal mid la tala saarta almaqsuusu kan lagu khaas yeelaya ammaantana huwa allah weeyaan nicma saas uma kan lagu khaas yeelayo hadday xumaan tahayna waa saasaa la yidhaha marka waxa weeyaan waxaa nicmo lahaaday oo barwaaqo batay alwakiilu mid la tala saarto wa huwa allahu allah subxaana wa tacaala ilaahay baa la tala saartaa waman yatawakal cala allah fahuwa xasbuh waa dhammaatay ninka ilahay tala saartaa ma sahlana kitaabu dahaaran markaa ka qaadanaynaa dahaarada waxaa la yidhaahdaa culammadu ay yidhahdaan luuqada markaad eegto tandiif bay yidhahdaan nadiif haddaa la tiraa istilaaxa la yidhahdana waxaa la yidhahdaa waa ficilun yustabaaxu bihi ficil lagu banaysanayo in salaada lagu galo ayaa la yidhahdaa bay yidhahdeen marka dahaaradu waa shay nebiguna uu sheegay calayhi salaatu wasalaam adduhuuru shadru liimaan walxamdu lilahi tamla'u lmiisaan wasubxaana allah dahaaradu waa iimaanka qayb ka mid a shay marka la gelayo oo salaad ah oo aan dahaaro lahayn ilaahay ma aqbalaysa hadday noo imanayso shay bilaa niye oo niye lahaynna lama aqbalo rugni bay u tahay labadaasba shay dahaaro la-aan baan iska gelayaa haddaad hilmaansan tahay waa gooni iyadu weeyaan oo qofka waxaa laga yaaba inuu isku qabto maalintii uu yidhaah arma weysadiiba kaa jabtay mise kaamay jabin mise waa dahaaro qabtaa mise ma dahaaro qabtid waa laba kala nooca weeye laakiin dadku badanaa way isku qaltaan weysadiibaa iga jabtay shaki baa yimid soo ma weysadiibaa iga jabtay mise igama jabin waa kow dahaaradiibaa iga jabtay oo ma dahaaro qabo ma weyse qabo iyo mise waan weyse qabaa hadday timaado waa inaad weyse asalku waxaa inaad weyse qaato laakiin hadday timaado ma jabtay mise may jabin oo shiki ah hadday timaado waxaad eegaysaa qabla salaatik salaadaada ka hor dahaaradaadii hore unba asal kuu noqonaysa ood ku noqonaysaa ma dahaaro qabtay yes waan dahaaro qabi ha dahaaradaadii hore unba iska waxsana shakigana iska tuur shaki sideedaba wax laguma dhiso waxba laguma dhiso yaqiintaa la iska qaata war waa dahaaro qabtay duurkii soomaad weysaysan casarkiisu lama joogaa feer way dhamaatay bis salaad way dhamaatay bis shakiga xun tuurba darax nabigu wuxuu yidhi iska daa shakiga yaqiinkaba adkaada sideedaba marka waxa weeye dahaaradu waa shay buu ku reebay markaa salaada iyo niyadu labaduba ah marka xadiiska ugu horeeya waan soo marnay waxaan ku soo marnay weliba 40ka عن عمر بن الخطاب وذكرنا رضي الله عنه قال وحير عمر سمعت رسول الله بن مغلي سمع بوير مركا يقول يسقوله إنما الأعمال بالنيات أعماشي وحي آتي بالنيات نيالك هي كل سنتهاي رمضان وحبي سوق الدرانو مطافا ماشا كم مقن أي رادان وأي رادان الأعمال صحة الأعمال بالنيات بيهاتي بيرادان أما بقى كمال الأعمال حبال سوق القلية قضان لكن سيدي دا سنو دينينا سيدي دينينا إنما الأعمال أعماشي بالنيات النيات كحيران تهاي أو النية مركا الله تمادوي إنما ذا حصرها وعكينيسا أعمال أوردن أعماشي مركا كلا صارنا مد من هي مد مأمور ولا يسفري أما باختياري غير اختيارا كلا صارنا مركا مد اختيارية هي مد اختياري باهين أعمال سو مجرتو اختيار آذان السماينين هبين كيف ترودا واسكا قيلسي وحباتري صدقان ديبتا ما هي وحبا تا اختياري ما wax ka yimid weeyaan laakiin tan ikhtiyariga oo samayso ay waliba maamura ayaa taas la rabaa tan marka acmaasho dhan hadaan iraano umum bay cadeynaya hadda meeshan umum bay cadeynaysa ma umumku ku jira meesha
acmaal oo dhan baa sideeda haddaan u dayno cumuum ka dhignana ilaa wixii laga saaro mooyaane saas baanu daynaynaa marka waxaa acmaal haddaan idhaha ilaa wixii un dee laga soo saaro oo la helo mooyaane wixii kale saasaan u daynaynaa marka acmaal oo dhanba waa sidaa waxyaabaha buu kule markaasi ma'muuraadka la isfaray salaadii oo kale iyo zakadii iyo waxaasoo dhan bay u tahay wixii manhiyaadkee la iska reebo matalan oo kale la iska reebo iyada lafteeda markaa ma u noqonaysaa matalan waxaa jira waxyaabo fara badan oo intaa aanan niyaba u baahnayn soo ma jira oo lagaa dee xun oo aanan u baahnaynba niyaba aanan u baahnaynba matalan wax xun baad samaysay wixii xunaa markaad samaysay ood ku dhaqaaqday ayaadan dee maxaad waaba samaysaba haddaad tiraa sheekhow waxa weeye inama alacmaalu biniyaat yaa kaa yeelaya dee lagaa yeeli maayo niyaba uma baahna wax xun uma baahna laakiin haddaad hamiso shaygii ood buu ku marka xumaantii ood iska oo marka intaad hamiso aadan samaynin xasanad baa lagu qorayaa haddii laakiin haddaad ka reebtootaa ujeed intaad hamiso oodan samaynin waxaa lagu haddaad samayso waxaa lagu siinayaa hal sayi'o laakiin haddii aadan samaynin ood hamisay xasanaa lagu siinayaa hal xasanaa lagu siin soo maaha laakiin ka waran markaa wixii baad samaysay zinadii baad iska samaysay ama wixii baad samaysay markaasaad tiri sheekho inama alacmaalu binniyaat weeyaan waxa weeye niyaba uma baahnaba matalan waxaan kuu soo qaadayaa xadiiskii ahaa nin adduunyadu waa 4 qaybood uu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam 4taasi waa nin maal iyo cilmi leh iyo nin cilmi iyo maal mid aan lahayn iyo nin maal leh oo cilmi lahayn iyo nin cilmi leh oo maal lahayn ninba ninba ku dayday marka ninkii cilmiga lahaa ee maalka lahaa ninbaa ku dayday wuxuu yidhi ilaahayow maalka iyo cilmiga ninkaasi uu leeyahay yaa haddaad i siiso anna sidiis aan ku samaynaya ninkaa wanaagsan ninkaas iyo ninkani waa isku ajir niyadooda niyadiisu waa haystay isku ajir bay noqonay ajirka kaa helo kanu helayaa kuna wuxuu yidhi ilaahayow kaas hebel la yidhaah maalkaa u haystee xun meelaha uu ku tegaye kalaabka iyo adduunka ku kharibayaan rabaa fa wisruhumaa sawaa'un buu nebigu calayhi salaatu wasalaam midna waxa weeyaan afdalu lmanaazil buu nebigu ku tilmaamay ninkii hore ee maalka cilmiga wanaagsanaan lahaa kan kale xunna wuxuu ku tilmaamay waxa weeye akhbathu lmanaazil manaasijta tan ugu hoosaysa ugu xun weeye nin xumiye waxa aamiyey ka ku daydana lamid buu markaa noqonayaa biniyaatin baa lagu soo bixinayaa marka acmaasha marka in la wanaajiyo baa fiican niyaadka marka aad acmaal samaynayso niyaadkeeda inaad wanaajiso aadan niyada hilmaamin dad baa iska dhayalsaa salaada iska gelaya waxaa laga yaabaa inuusan niyeysanba oo haddaad tiraado ka waran salaada sheekha 10 sano aan tukanaye maxaaban ka niyeysanayaa horta niyadda maxay kala saartaa waa inaad keentaa maxay kala saartaa 2 qof halkaa ku tukanaya halkaasay ku tukanayaan kana wuu xidhay bal weydii marka waxaad tiraa sheekho maxaad tukatay kana wuxuu ka hor casar baan tukaday kana wuxuu ka horan salaad waxaan tukanayay tahiyatul masjid way kala saartay niyaddii kana muxuu niyeystay casar inuu galo kana muxuu niyeystay masjid buu waxa idaa dakhala ahadukum al masjid falyasjud sajdatayn qabla an yajlis taasuu saa u tukaday way kala saartay marka caadadana way kala saariyo waxay u kala saaraysaa haddaad maanta tiraado anigu waan iska maydhanaya waad ka maydhatay matalan markaas iska maydhatay maxaad u maydhatay caadi niyan kulayl baa jiro waan iska maydhay ninna wuxuu yidhi waan maydhay maanta maxaad u maydhatay dee xalay baan waxoogaa jabayo waan iska maydhay janaabadii waan ka maydhanay eeg saboo kala saartay marka kana wuu maydhay maxay ku kala duwan yihin marka labadiiba way maydheen laakiin waxay ku kala duwan yihiin kana wuxuu niyeystay maxay janaabada inuu iska maydho kana wuxuu niyeystay kulaylka iyo waxa bas inama alacmaalu binniyaat nin kasta wuxuu niyeysto marka leeyahay niyadaada wax kasta marka soo gelaya inama alacmaalu acmaashi binniyaat niyaadka ayay ku xidhan tahay wa fii riwaayatin binniya niyadu wey ayay ku xidhan tahay ku sugnayd wa inamaa likulli imri'in qof kastara maa nawaa wuxuu niyeystuu leeyahay qof kasta wuxuu niyeystuu leeyahay niyada ayaad wax kasta ku leedahay niyadaad ku leedahay haddaad salaad duhur tukanaysa ka war salaad duhuriyada la tukanayo casar baan u jeedaa baa timid markaasaa salaadii qab la siiyey la galay oo markaa lagu jiro ayaa tiri duhur baa kaa tegey hortalo maxaan sameeyaa duhur baan tukadaa duhur baan tukadaa mise casarkan aan galaa waa isku tiri markaasaad waxay yidhahdeen culammadu dee bal niyad iskaga gal bay yidhahdeen niyatu waxaad ku gashaa duhur iskaga gal lan duhurkii baa tegey niyatu duhur ku gal maxaa lagugu fahmay marka waa niyadii wey mars allahu akbar waa casar haddana maxaad u niyeysatay 4 ragcadood baa u niyeysatoo duhura talaq baa tiri waad ka baxday way ku saxday waxa dhima male niyadiin baa la eegayaa inama alacmaalu binniyaati wa inamaa likulli imri'in maa nawa faman qofkii kaanat hijratuhu ay ahaatay tagidiisu hijrada waxaa la yidhahdaa sideeda ka tagid baa la yidhahdaa
كتجد اللي يرى ما لقى تجو هجرته وحكلنا ولا يرى ذا ما هاجر ما نهى الله عنه إلهي قفك وحو كرب هاتو كتجو يد هجرة اللي يرى لفتي ذا والله ولا يرى marka xadiiska waan garanaynaa kulley wax badan oo laga yar sheego aan garanaynaa ninkii soo haajiray nabi maka ka yimid isaga laftiisa ee gabadha dee u soo haajiray hijradiisu asxaabtu waxay u soo haajireen ilaahay daraad iyo rasuulihi laakiin isagu waxoogaaba ku qarsanaayo gabadhan iyo jacaylkeedii iyo waxaas dabeedna waa lagu cadeeyay waxa la yiri jacaylkaaba kugu jira kaaban ba adiga niyad ku ah niyadaada halkaas oo leexatay faman kaana lidunya marka u leexatay isaga dadkana lil aakhira iyo dhammaan ba wada leexatay فمن كانت هجرته قفك هجرتيسو إلى الله مركب علماء waxay yiraahdeen de shardigan ficilo shardigan iyo meesha yaal iyo jawaab shardigu haday iskhilaafaan sideedaba mubtada iyo khabarku waa inay noqdaan baa la yiri sideedaba maxay ina tagaayuru ku dhaco ayaa fiican mubtada waan iska naqaanaa isagu waa macrifa lagu bilaabaa waa inay tagaayur ku dhaca oo ina isku mid noqonin saadaraade ficilo shardiga iyo jawaab shardigu waa inay iskhilaafaan haday iskhilaafi waayaan waa in la soo qadaraa marka كوان لي هذا فمن كانت قفك هجرته هاجريدوس إلى الله ورسوله أهاتي فهجرته هاجريدوس إلى الله ورسوله بأهاتي أنا حكم من إياه حوي وقبولا بقى ثوابك حكم أهان إياه قبول كلا أقبل به أنت بصاص بأهاتي ومن قفك كان ضيهاتي هجرته هاجريدوس إلى الدنيا يصيبها والربين أصيبه أو امرأة أما قبل يتزوجها والربين قرسده فهجرته هاجريدوس إلى ما هاجر إليه وعوسو هاجري أم بمركان نقونيسا ويان وحي وعوسو هاجري يوم بمركان نقونيسا مركا نيدو وحسالان مركا معها وحي كلا صارتا عادة يا ضدك وحي عادة كدكتين يا وحي كلا صارتا يا محي عبادة كلا صارتا حديث كان كليا كدريناه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يري لا يقبل الله إلهي ما أقبله صلاة أحدكم أحد كن سلاديس إذا أحدثه مركا كتشفته حدث كوحيامان كهذا إيه وحكاية ماذي وعسى ليها إذا أحدث مركي صلاة كشفته حتى يتوضأ إلا أو سقاطه حديث كان هو يريهي لكن أنا يجنا مركب على بضم بكوتشرا إنه يريهد موت لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ إلا أو كوي سقاطه وحال سكر عاي قفك حاطون ويستقبل صلاة متكون كو وان قرناي وقف ويسقبوا صحيحة أو سوي سيستي أو صحيح ثلاثي سؤال تهاي أيان هذا لا أقبلين مركا علماء وحي يراهدين كل مقبول شيء كستون لا أقبله أو ثواب أجر لقاه له وحويا صحيح وي لكن ليس كل مت كستون صحيح مقبول معها حيكون عظيم أنقص القاضي يدور حديث نبي يقول من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل صلاة 40 يوما نينكي u yimaado kaahin ama cagaqaata ama kuwan wax sheeg sheega ee wax su'aale rumeeya 40 maalmood salaad laga aqbali maayo oo uu soo weysaystay qofku soo weysaystay soo tahaar qaatay oo soo dhameystiray laakiin maxaa loo aqbali waayo marka waxa weey macnaheedu thawaab uu tukani laakiin thawaabka iyo ajirku kalaha intaas oo dhan waxba la siin maayo intaas oo dhan xabad laga siin maayo marka laakiin salaadu waa sax salaadu tukada oran mayso waa baatil ma dhays laakiin maqbuulkii la aqbali laha thawaabkii iyo ajirku ka heli laha yaa meesha ka baxay dalka saasa marka loo yiri kullu maqbuul waa saxiix walaysa kullu saxiix maqbuul ma لا يقبل الله مرك إلهي ما أقبله صلاة أحدكم أحدكم صلاة إذا أحدث مرك أي كتبت حدثكم مرك ولا بشي ويان حدث الأكبر مدوين إيا مديار إيا ليراه معناه حدث كمرك تراضنا قرن كريمي سيد الله عقل جمويانه قفل كميشة تاجن ورمي كاتشب سنتاي مسكامة شب سنة ما قرن كرتها قرن كرت واحد قرنون مرك أذكر تراضه وريا عقل قال لو قرت حدث وريا صلاة ما كاتشب ترسويس هاوي كاتشبته meelaha uu ka weysan yahay dhan waad garanaysaa midna waa akbar baa la yiraahdayo ka akbar ka isaga waxa weeyaan garanaynaa waa sida waxa weeyaan junubka kale iyo markay wax ka yimaadaan manido kale iyo waxyaabo saas markay ka yimaadaan ayaa la yiraahdaa junubood waa inaad weysa qaadataa waa inaad maydhataa oo wali maydhasho kaamila sidii rasuulka kaleey salaatu wasallam uu maydhan jiray inaad ku maydhato nabiga kaleey salaatu wasallam waxa la yiraahdaa ku maydhan jiray maxay saac buu ku maydhan jiray saac wax yar weeye wuxuuna ku weysa qaadan jiray mud baa la yiri halka hombo inagu maanta waa iska furnaa biyaha la markaasaad la leeyahay maanta dhan uma aabayeeri sida masaajkaas
lacag inay ku baxaysay inay wax ku baxayaan iyo ya nabiga calayhi salaam sacad wuxuu ku yiri waa sacadow biyaha weligaa iyo allaha waa inaad wanaajisaa iska ilaali buu yiri tasriifka ha ku tasriifin xataa walow nahar aad dul taagtide webi weyn xataa haddaad dul taagan tahay ha ku ciyaarin biyaha israafka ku samayn meelahan marka inagu balalalalalala maanta dhan buu iska furayaayo waxaa laga yaabaa inuu bahashi iska goosto warqado markaasuu iska tirtira waana socdaan biyihii mud buu nabiga leeyahay calayhi salaatu wasalaam wuxuuna ku maydhanayay saac saas markaa aad u maydhato ayaa markaa wixii kaa dhacayeen oo markaasaad noqonaysaa maxay daahir noqonaysaa marka ilaahay ma aqbalo salaad kasta oo aan la weyse qabin ka waran haddaad salaada adoo ku jira aad xasuusato marka oo tiraahdo ma weyse qabtaa weysadii way kaa jabtay ood xasuusato waa iskaga baxaysaa waanaad ka baxda asalku waxa weeye in la weyse qaato waxa marka lagu weyse qaadanayo saddex shay baan kusoo gabagabaynayaa laba shay ha la ogaado shay waxaa jira la yidhaahdo maqaasid la yidhaah iyo alwasaa'il la yidhaah maqaasida laga leeyahay tahaarada waxa weeyaan weysada wuduu'iga iyo tayamumka qusliga oo la maydhanayo intaad waxaa la yidhahdaa maqaasid baa la yidhahdaa wixii markaa wasaa'ila lagu gaadhayana waa maxay wuduuga maxaa lagu gaadhaa biyaa lagu gaadhaa soma biyaa lagu weysaysaa soma haddaad biyo weydana tayamumka maxaa lagu tayamsadaa carro soma ya haddiiba kula aad maydhanaysana waa biyo soma haddaad wax dahirinayso najaas aad dahirinaysana waa biyo ama maxay ama meydkoo kale markay neef kaa dhinto haragga markaad ka saarto maxaad ku dahirinaysaa biyo lagu dahirayaa mise migdi baa la ohan jira waa la migdiyeeyaa inta la qaado dambas iyo asal baasaa lagu yiraa oo la gubaa migdi marka waa ku xalaalood ku saxanaysaa marka qaarna waa wasaa'il qaarna waxa weeye maqaasid baa la yidhaha maqaasid waa intaan sheegna wasaa'iltuna waa biyaha iyo migdiinta lagu migdinayo nijaastii iyo waxaasoo dhan baa la yidhaha marka labadaa shay marka eeg shayga marka lagu weysaysanayo waa biyaha asal biyaha haddaad biyo haysato ayaad ku weysaysanaysaa marka biyo la waayo ayaad marka haddana carraad u leexanaysaa laakiin idagoo biyo yaallaan carro uma leexan kartid ilaa hal mid waa laga yaabaa qofka hadduu cudurdaar leeyahay uu jiran yahay xubnaha ka jiran yahay ama qabowgu dhibayo amaba uu yahay qof weynaaday oo waxaan oo dhanba ay dhibayaanba marka ayar buu saa iska oranayaa derbiga xataa kan xataa ayar buu saa iskaga oranayaa dhag jag dhes intaa keliya markuu saa iska oranaya sidaas saxiixa nebiga ka sugnaatay alayhi salaatu wasalaam waa jiraa mid oranaya ilaa halka imaam shaafici saasaan u qaadanaa laakiin xadiiskan baa waxaa la yidhi ka waxaysan saan baad oran nebigu wuxuu yidhi miyuu sidaa un yidhaahdo wejigiisa buu ku yidhi ninka asxaabiga galgashay hamaar buu ahaa intuu u tegey safar ayuu garan waayey sida loo maydha iyo waxa la sameeyo ila biyana ma yaalaane weysaysu isiri uu garan waayey markaasuu iska galgashay sida geela saasuu carradii ku galgashay boodh miida kaasaa nebigu u yimid markaasaa hamaar maanta u galgashay suu yidhi haakadaa baa kaga filan buu yidhi saa intuu yidhaha saa yidhaha dhag bas waa dhamaatay xataa junub haddaad qabto oo aad buu kule markaa weyse qabin oo aad wax kala weydo junub xataa biyaha ka baqday waa iska tayamsanaysaa faari waa dhamaatay laa yukallifu llaahu nafsan ilaa wuscaha yaa fattaqu llaha ma statactum awoodda waxaa ilaahay u saaray intay la eg tahay adi awooddaada adaa yaqaan laakiin adigu ha isqiyaamin intaad tiraahdo sheekhu biyo ma kari karo adaa yaqaan hay weydiin biyo ma kari karo adaa is yaqaan naftaada meesha dhigayso qalbigaaga adaa yaqaan intaad haddaad isqiyaamayso biyo ma kari kara sheekhu adoo kari kara taas waxaa weye ilahay kaama aqbalayo laakiin waa markay gaadha maxay ninka doofaar ninka cuna meydka maxaa la yidhi maxay cun baa la yidhi goorma markuu gaadho marka halkaa timaad soo ma aa la yidhi in yar saa ka dhandhami dhag ka socaa la yidhaha qaadan weliba safar jeebadda intaad gashataa buuxin intaa yar dhag intaad siista ka dhaqaaji sheekh markaad weyda haddanaad gaajootaad hadda hesho kadaalika wey salaadana marka wuduuga intaad biyo helayso ha u leexan dhankan laakiin 10 sana buu nabigu yidhi alayhi salaatu wasalaam ninku wuxuu tayamumsan karaa walow 10 sanaba ha noqoto 10 sano haddaa la waayo biyo oo wax la waayo aad tayamumsanaysaa wax dhiba male marka kaasaa marka u noqonaya weeyaan waxyaabahan iska maydhana way noo iman doonaaye kaadida iyo waxaan iyo dadka badana haddan kasii yar horumarinayaaye kaadida iyo biyaad kaga waxaynaysaa biyaadoon iska imanaan warqadaha meesha yaalla intaad ka soo jarto unbaad saa iskaga oranaysaa inta nadiiftaada witir unbaad ka yar dhigiyo ama haddaad ka dhigi karayna iska nadiif si fiican iskaga nadiif markaad iskaga tirtirto waa iska tukan kartaa dad laakiin waxay kaga dhigtay ma meeshanaan anigoo mariyey marqad mariyey unbaan tukan karaaba maymay war sheekh way waalin biyaan iskaga maydhay waxbaha iska lifan adaa iska lifaya man shadda shudda calayhi buu nabigu yidhi ninka isku adkeeya waa lagu adkaynayaa waxaa laga yaabaa adoo hadda diidiidayo le sheekho iga daa maalintaad kula kulantay inaad tiraa naga daaniyo biyahana waa kana dhibeene
والشيخ وحو شيء إلى خير السياسة واسع دينتو ميل ما دعدو ميلو بيكون دعي ميلو بيكون دعي مرو بيكون دعي markaas aroon iyo dhib yarayda maxaan isku kadeeyay faraha qaatay maan ayron dhag intaan iska siiyo qabowgan iyo waxan xayiikay dhakhtar baan u tago wuxuu iska daaniyo meeshan malaha halistan meeshan ka soo socoto waa biyo qabow waxaan iska deysaa hataa dhibba marka ugu noqoto qofka damarka loo sheego dadkii awoodiha loo sheegay istijmaar haddaad kaleeyay istijmaar baa la yiraahdaa dhagaxaan dee hadda laba haye dhulkan wax la isku tuurtuuro biyaala laakiin waxa xaashidaas taal xaashidaas la isticmaalaa biyo marka waa asal weeye salaadana marka waxa weeyaan إلهي ما أقبل سبحانه وتعالى بلا توضؤ ويسير سيد الله ويسيستنا وإنه إيمان تمتع يسير الله قاطع إن شاء الله دو إلهي هذا السلام عليكم ورحمة الله